لكن هو يسوي قرتي ساكي سو وعدي ويتراضي الرحموي هو معنا وكول وليا وويلكي أنا قلت هذا وأنا نحللنا وأمانتنا أنا هو وويلكي قرآن ملسيك طلب سبحان الله مركل سوماليلاند oo uu xukumo Muuse Biixi waxa ka soo yeeraysa dhacdo foolxun oo lagu dhibaateeyay wiil Soomaaliyeed qadadii ma u geyseen quraacdii ma u geyseen ayay leedahay hooyada dhashay wiilka Soomaaliland ay xabsiga u dhigtay tuutaha ciidanka maamulka Puntland oo uu xirtay iyo calankeena Soomaaliya dartii haddaba muuqaalkaad arkaysaan waa gabar walaashiis ah oo uu qardho xaflad ugu dhigay wiilkan Soomaaliland ay xirtay ee lagu magacaabo Dhiidhiye oo aad u oynaysa kana hadlaysa waxa Dhiidhiye hooyadii ay ku tiri alla xanuun badana marka hooyo wiilkeeda aan wax dambiye galabsan la xiro haddaba haddaad leedahay damiir damqasho iyo dhiig Soomaalinimo muuqaalka laag saar siduu u baaho Dhiidhiyena xorriyad uu uga helo Soomaaliland ku soo biir baraheena bulshada ee ducaysana meediya ku mahadsanid daawade kulanti habboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafaheeda ka joogtaan ku soo dhowaada channelkeena ducaysana meediya iyo page-keena ducaysana meediya oo aan idinkugu soo baahinno xogaha markaasi taagan oo aan isleenahay bulshada waad u gudbin kartaan waxaa ka soo yeeraysa deegaanada maamulka Soomaaliland oo uu ka taliyo Muuse Biixi dhacdo aad u foolxun isla mar ahaantaana halkaasi ku qabsatay wiil Soomaaliyeed oo ay ciidamada Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen isla mar ahaantaana foolxun ay xabsiga ku galiyeen kaliya waxay u xireen wiilka tuutaha ciidanka maamulka Puntland oo uu xirtay iyo sidoo kale calanka Soomaaliya walow muddooyinkan dambe xurguf ay ka dhaxayso Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland balse Dhiidhiye ayaa ah shakhsi ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan baraha bulshada qaasatan aaladda lagu magacaabo TikTok-ga walow caan uu aad uga yahay deegaanada Soomaaliland iyo Puntland intuba haddaba gabar Soomaaliyeed isla mar ahaantaana walaashiisa ayaa waxa ay leedahay hooyadii oo i soo wacday ayaa waxa iigu tiri qadadii ma u geyseen quraacdii ma u geyseen ayay leedahay hooyadii dhashay ayaa aad u oynaysa haddaba daawade waa tan gabadhan oo sharaxaysa Dhiidhiye iyo wax lagu xiray لكن هو يسوي قرتي ساكي سو وعدي ويتراضي الرحموي هو معنا وكول وليا وويلكي أنا قلت هذا وأنا نحللنا وأمانتنا أنا هو وويلكي قرآن ملسيك طلب قدني ما ويدي سقبنا إنا سيان أنا هو يلي هذا وقتين كناني مرك أنت هو ينعيسو أنا آدم وأوي معقولة لا وحلقة عاوية كانوا سوسيلايا ونعاوية waxaan rabaa asxaab xagga inaad ka caddeeyo oo dadku dhan khalad bay iga fahmeen laakiin xaggaana waxaan rabaa inaad u duubtaan dhammaan ummadda islaamka 7 qof baa ku tagnay Hargeysa ma ka aadanay si wanaagsan si gobonimo leh ayaa noo soo dhaweeyay maalintaan soo bixi rabnay oo qada kariska noogu sameeyay admis in hotel oo xafladda tii la guriga ahay ayaa qada karis lagu sameeyay si sharaf leh marka qada kariska asoo inoo qadeynay dhamaanteen ayaa waxa bilownay inaan fidiyaal duubno waxa ila socdo 7 qof ahayn Dhiidhiye wiil dhaho oo saaxiibkaya saaxiibo qaali aan nahnay oo qada igu soo dhaweeyay oo marka qada aaday saddex gaari aan ku baxnay hotelkiisa lacagtiisa everything isaga qabay marka qada joogay isaga qabay kowdhaha waa jeclaa haddii aad tahay daawade muwaadin Soomaaliyeed fadlan muuqaalka la garee oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade sidii uu xorriyadiisa u helo walaalkeen Dhiidhiye